بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتاي كلنتي wanaagsan meel kasto aad dunida aad ka joogtaan ku soo dhawaada warbixinadii ugu dambeeyay ciyaaraha saaxiibayaal waxaan eegi doonaa maanta kulmadii laga ciyaaray xalay horyaalka Bundesliga iyo horyaalka Serie A iyo kana liigaha kulamadaas oo ahaa kulamo xamaasad watay ayaa saaxiibiya xalay ilaa shala galab laga ciyaaray horyaalada ka tirsan qaaradda Yurub kulamadaas ayaa saaxiibnina wadaagi doona idin faaqido doona iyo kulamadii la guuleystay iyo kooxihii guul daraystay ayaa saaxiibayaal iisoo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay soo boqoto barteenan fadlan halaga ilaawan waxaan ka mudanahay waana ku mahadsantahay saaxiib la jaanqaadkaaga kooxda kubadda cagta Barcelona oo ku dhasha garoonka Camp Nou ayaa waxay xalay gaadhay guul la taaban karo guushaas oo ahayd guul inaba caadi ahayn muhiimna u ahayd kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hoggaanka liigaha si ku meel gaar ah u wareegtay maadaama kooxda kubadda cagta Real Madrid ay maanta dheelayso duhuradii kulan ka tirsan horyaalka liigaha sidaas lacaligeed kooxda kubadda cagta Barcelona ay horyaalka liigaha ku sahaysan doonto dhiciisa si ku meel gaar ah waxayna Barcelona xal gaadhay gool taaban karo oo muhiim ah markii 4-0 ay ku dhufatay koox yar oo ka dhashay horyaalka liigaha saaxiibayaal kulankan oo ahaa kulan weerar celis lahaa ayaad moodisay in kooxda kubadda cagta Barcelona oo laacibadii ugu muhiimsanaa ee u dhaliyay naadiga lagu magacaabo Barcelona ay keed ka dhigtay maadaama ay talaadada dheelayso kulan ka tirsan Champions League kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay ku beeqan doonto garoonkooda Allianz Arena marka saaxiibayaal kulankan oo lagu soo bilaabay daayarta kooxda Barcelona waxaad moodaa daayarta u soo baxday Barcelona sanadkan inay dardar xoog badan leedahay maadaama kulankii xalay laga dareemaysay baan isku dhufsanayeen ay weerarkooda oo ahaa mid halis ah laakiin waxa ay dhammaan goolasha oo dhan ay yimaadeen qaybtii dambe ee ciyaarta markii goolkii koobaad uu ka dhaliyay Frankie de Jong goolasha kale waxay ka yimaadeen laacibada gadaal ka yimid ee lagu magacaabo Lewandowski iyo laacibka lagu magacaabo Fati iyo Ousmane Dembele Qawar ay saddexda gool oo kale ka yimaadeen halkaas oo noqotay 4-0 inay ku soo jiraan kooxda kubadda cagta Barcelona naadiga Cadiz marka saaxiibayaal kulankan waxa uu ahaa kulan aad iyo xamaasadiisu watay Barcelona muhiimad gaar ah ayuu watay maadaama ay ku sii dhawaanayaan kooxda hogaaminaysa horyaalka liigaha oo lagu magacaabo Real Madrid maadaama ay Real Madrid ku fikirdo maanta lagana badin karo barajna ay gali karto Barcelona ay ku sii daalon doonto hoggaanka horyaalka liigaha marka kulanka waxa laga diiwaan galay in laacibka lagu magacaabo Robert Lewandowski inuu kulan walba gool dhalin karo laacibkan ayaa laga diiwaan galiyay maadaama uu yahay laacibka hadda ugu goolasha badan naadiga Barcelona kulan walba ama horyaal ama Champions League-na uu yahay laacib mar walba u muhiim kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa looga yahay inay xalay dhammaan laacibadii safka hore ku soo bilaaban jiray dhammaantood ay dhigtay benchi maadaama ay talaada la dhaliso kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Bayern Munich ay ka dhisan Bundesliga kooxdaas aan ahayn koox marnaba aan sidii loo guuleysto garoonkooda ay adag tahay Barcelona waxay rabtaa inay guul ku soo gaadho garoonka Allianz Arena ay ku dhasho kooxda kubadda cagta Bayern Munich kulankan ayaa waxa iska hor imaanaya oo aad iyo aad isku xifaaltaynaya ka hor imaanaya kooxdiisii hore laacibka lagu magacaabo Robert Lewandowski oo muddo dheer u soo ciyaariyay kooxda lagu magacaabo Bayern Munich waa koox aad iyo aad fantastic u ah waxayna haystaa ciyaaryahano badan uu ka mid yahay laacibkii hore ee Liverpool Sadio Mane iyo laacibo badan ee ka dhasha dambeedka bidix ee kooxda Bayern Munich oo aad u sareyso iyo laacibka ka dheela garabka bidix ee lagu magacaabo Sane laacibkii hore ee Manchester City ayaa saaxiib halkaas ay isku falgali doonaan ama iska hor imaan doonaan laacibyada tayada fiican leh ee hadda u dhashay kooxda Barcelona
waxaa moodaa Barcelona inay kasoo kabanayso sanadihii lasoo dhaafay walwalkii walbahaarkii ka qabtay gool dhalinta maadaama laacibkoodii Leo André Messi uu iska baxay garoonka Camp Nou halkaas uu u galbaday kooxda Paris Saint-Germain marka saaxiibayaal waxaa moodaysaa kulankan Barcelona uu ahaa muhiim ayna guul fiican gaareen la filayana in kulamada soo socda ay Barcelona tayo fiican ay soo wado maadaama laacibka Lewandowski uu yahay laacib tayadiisu aad u sareyso laacib marwal lagu tashan karo uu noqday halka Fatina uu yahay laacibka markacsada oo markii loo baahan yahayna ka imaan kara kooxda uu ka soo horjeedo laacibka lagu magacaabo Fati marka saaxiibayaal kulankii xalay waa soo dhamaaday Barcelona hadda waxay ilaalinaysaa ama ay ku raaxaysanaysaa hoggaanka horyaalka La Ligaha marka saaxiibayaal waxa la eegi doonaa kulan kale oo ka dhacay horyaalka La Ligaha kulankaas oo u dhaxeeyay koox yar ee ka tirsan horyaalka La Ligaha iyo kooxda Athletic Madrid marka waxa moodaysaa saaxiib Athleticna 4-1 inay ku reysay xalay oo gool la taaban karo u gaaray tabare Simoni marka saaxiibayaal waxa moodaa kulamada horyaalka La Ligaha sanadkan inay xamaasad gaar ah leeyihiin maadaama kooxaha ugu weyn horyaalka La Ligaha laga gaaray guulo waaweyn oo naadiyaasha ka dhisan La Ligahana sanadkan ay wax kale ay yihiin macnaha maadaama Real Madrid iyo kooxda lagu magacaabo Barcelona iyo kooxda lagu magacaabo Athletic Madrid ay guulo la taaban kara gaareen xagaagan ayna isku dhibcadhow yihiin waxa moodaysaa horyaalkan sanadkan inuu xamaasad gaar ah ama gooni leeyahay halkaas ay daacadna kooxda ka dhashay Bundesliga ee reer Germany kooxda lagu magacaabo Bayern Munich ayaa 2-2 lagu qabtay shalay galab maadaama ay laacab badan oo tayo leh ay ka dhigeen kursiga keedka maadaama ay isbuucan dhexdiisa talaadada ay leeyahay kooxda Barcelona kooxdan ayaa ahayd koox dardar xoolo ku socota labada gool laga hormaray marka waxa lagu qabtay Breach kooxda hogaaminaysa horyaalka Bundesliga ee lagu magacaabo Bayern Munich saaxiibayaal walaalayaal intaas ayaan ku soo gagoynaa wararkeennii subaxnimo haddii aad wali la sii joogtid waxaan ka codsanaynaa inaad waxa xaq u ka leeyahay channel-keenan aad noo samaysid waana ku mahadsan